معلنكا maamuus dalkeena kii ku yeeshay magaco loo wada maqsuuday maamuus dalkeena kii ku yeeshay magaco loo wada maqsuuday mugdiga iyo jahliga isaga masaxay معلنكينا مسك حقك سمرتي كبوح دم معلنكالي وارن معلنكالي علمي مقين ولقى معاش معلنكالي وارن معلنكالي عدنا لما مسالي مولهيو أبال مري عدنا لما مسالي مولهيو أبال مري آمين آمين الله يو أبال مري معلنك الله يو أبال مري معلنكا ما دحداد الكنيو ددك ما مولايا كيكسو معاشين maanta muxiibadiisu maalinta weeye markaa minhaajka la yimicneeyaa miliilaha maskax fayow baan cilmi ka maalayaa miro bislaada sida mareerka muudsada ardayga maanta muxiibadiisu maalinta weeye markaa minhaajka la yimicneeyaa miliilaha maskax fayow baan cilmi ka maalayaa miro bislaada sida mareerka muudsada moodayo ha u malaynin macallinkayga inaan ka maarmo moodayo ha u malaynin macallinkayga inaan ka maarmo bare macaano malab shubayaan mugaamiya wuxuu muraayadiiga muujaa mustaqbalkayga maraan dalkayga maamulaan mahadiya inaan mas-uuliya madax noqdaa baan maaganahay bare macaano malab shubayaan mugaamiya wuxuu muraayadiiga muujaa mustaqbalkayga maraan dalkayga maamulaan mahadiya inaan mas-uuliya madax noqdaa baan maaganahay moodayo ha u malaynin macallinkayga inaan ka maarmo moodayo ha u malaynin macallinkayga inaan ka maarmo ha u malaynin macallinkayga inaan ka maarmo bara macallinkeygow alif iyo ba barashada maanta waa barofesor ahay adiga ay barbaarsho ii bilay hanaankee bara macallinkeygow bisho kaalinteedii bayaankii iyo tacliintii haddabana siisoo nagu baratasiisee lagu baahi beelow biladaha aqoontii nagu wacan baraaraha bara macallinkeygow waxaa tahay bayaankii jahli baabiis isiiyo baahintiiyo tacliintii ilaa bariga waagiya bartankeeda maalin noogu baaqay guushow bara macallinkeygow bishaan waa bishaadii nofeembar oo aan buuxsamay 9 baaqi tahay weli xuskaagay ku baagneed anna kaamaan baqayline ducaan kuugu bashaareeye boqorku ku aqbaliyo weligaa barwaaqow macallimiinta Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan leeyahay hambalyo khaasatan macallimiinta galmudug khaasatan macallimiinta dugsiga hoose dhexe sare ee kowda luuliyo waxaan leeyahay hambalyo xafladda quruxda badan ay noo soo agaasimeen ardaydeena qiimaha iyo qaayaha badan hambalyo ayaan leeyahay waxa kale oo aan u mahad celinayaa ardayda quruxda badan ixtiraamka badan sida fiican u soo agaasimay xafladda heerka sare ayagna waxaan leeyahay hambalyo
waxaad ka soo baxdeen kaalintii ay isku lahaayeen macallinka iyo ardaygu waayo macallinka iyo ardaygu waxa weeyaan waalid iyo ilmihiisii mar kastana waxaa qurux badan in la ogaado abaalka uu waalidku galayo maadaama macallinku ku jira booska waalidka ku jiro waxa kale oo ardaydan kula dardaari lahaa macallinku waxa uu jecel yahay inuu arkaa waxa weeye marka uu arko ardaygii uu wax barayay oo ku daalayay oo uu ka muuqdo cilmigii uu barayay oo uu ka muuqdo akhlaaqad iyo wanaag run ahaantii taana iskuulka ardayda dhigata waan ka aragnaa way ka muuqataa waxay noo cadaynaysaa sida quruxda badan ee xafladan ay u soo agaasimeen ay u soo qabanqaabiyeen ayaa noo cadaynaysa waad mahadsantihiin baanu leenahay anoo afkii macallimiinta ku hadlaya أولاً قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية أحلى من العسل وأبرد من ماء الثلج ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتا كدب إلهي با محله ما أنتو كلا اسكوكايا كياني ومالين تاريخ له caalamka oo idin laga xuso waa maalin macallinka uu leeyahay waa maalin macallinka lagu tilmaamay kaada almuallimu an yakuuna rasuula waa maalin qiimo ku leh agteenna haddaan nahay bahda macallimiinta weli aniga muddo badanaa macallin ahaa dad badan oo ardaya oo maanta injineero qayb ka ah magaaladan macallimiin ah ayaan ka mid ahaa ardada wax soo bartay macallinka wax soo baray ka mid ahaa insha Allah ilaahay hadduu yiraahdo maantana waa maalin aan rabno inaan xusno halkan aan ku xuseynana waa iskuulka ugu qiimaha badan iskuullada ku yaala Bandiiraley waxaana la yiraahdaa Kowda Luulyo waxaa dhigta arday aad iyo aad qiimo u leh yaqaana macallinka qiimihiisa ixtiraam leh soo dhaweyn fiican leh marka ilaahay haddii uu yiraahdo waxaan leenahay maantoo kale madaxaana furan maantoo kale madaxaana furan aan leenahay waa maalin aad qiimo u leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka koowaad waxaan salaamayaa dhammaan macallimiinta iyo maamulka marti sharafta iyo ardada qiimaha badan waxaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام waxaan rabaa inaan dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed aan iraado hambaliyo qaasatan inaan iraado macallimiinta Galmudug hambaliyo haddana mar kale waxaan rabaa inaan si hoose ugu sii hambaliyeeyo macallimiinta degmadan aan joogno marka ugu dambeysana waxaan rabnaa inaan si gooni ugu sii hambaliyeeyo macallimiinta maanta ay maalintooda tahay iyo marti sharafta nagala soo qayb gashay halkaan isku ka yimid macallimiinta Kowda Luulyo waxaan leeyahay hambaliyo waxaan rajaynayaa hal mar inay igula sacbisaan macallimiinta idinku raaliya maamulaha macallimiinta ardayda dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo macallimiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan qaasatan macallimiinta Kowda Luulyo oo ugu horeeya macallinkaygii qaaliga ahaa macallimahad Maxamed Dhoorre run ahaantii waxaan rabaa macallimiinta wax kaloo lagu abaalgudi karo ma jiraan waxay naga mudan yihiin inaan dhahno waa mahadsantihiin ardada waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xafladan aadka u quruxda badan soo diyaariyey mahadcelin kadib waxaan rabaa inaan ardada Kowda Luulyo la wadaago fariin ah waxaan rajaynayaa xafladan aadka u quruxda badan xafladda ku xigto aan isku imaan doonaa inay noqon doonto insha Allah sideedaadka xafladooda iyo iyadoo loogu hambalyeeyo doono qof baa kaalin galay fariintaas aadka u qurux badan markaan kaga tago run ahaantii ardada Kowda Luulyo maanta maryaha un baa noo kala bedelan maahan macallimiintan maanta waxay dhigaysaa waa macallimiintii hore waxay ugu soo dhigtay laga bilaabo maamulaha ugu horeeyo maamulaha معلنك التربية مع عبد الله مع عبد الفتاح مع عبد الله عبد الديرية دمان مع معلمينتي ما أنتي تقصوا أبابيي
heerkan aan joogo iyo maanta meeshaan aan soo gaaray waa macallimiintii igu soo hagtay waxaan rabaa inaan dhaho marka macallimiina waa mahadsantihiin boos aan ka maqnaaba ardaduna idinkuna sii buuxiseenoo macallimiintii baa maamuusaynaa nagala soo qayb galana tiraadiin baahayd maadaama macallimiintu ay waxna wada bareen marka intaas kadib waxaan idiin rajaynayaa guulo badan ardadiinna macallimiintana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waan ugu soo dhabar adeegdeen abaalkiinna allaha gudo bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh alxamdulilaah uma salaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed ama bacd marka ugu horeysa waxaa halkan oga hambalyeenayaa dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibad sidoo kale inta waxaan halkan uga hambalyeenayaa macallimiinta Galmudug oo aan ka mid ahay waxaan halkan uga hambalyeenayaa macallimiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Kooda Luuliyo 1974 ayaa loo asteeyay maalinta 21 November inay noqoto maalinta macallinka Soomaaliyeed sidaa darteed tan iyo xilligaas sanad kasta maanta oo kaleento ayaa waxaa loo dabaaldegaa maalinta macallimiinta Soomaaliyeed waana maalin farxad weyn xambaarsan taasoo markaa lagu maamuusayo macallinka Soomaaliyeed run ahaantii ardada dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Kooda Luuliyo ee soo agaasintay xafladan quruxda badan leh waxaa uga mahadcelinayaa agaasinkooda iyo muxuu ahaa dadaalkii ay ku soo agaasimeen xafladan ay ku soo bandhigeen ayaa uga mahadcelinayaa waxayna ku maamuusayeen macallimiinta ayaga waxbarta iyo kuwii horey wax u soo bartay iyo guud ahaan macallimiinta Soomaaliyeed ay ku maamuusayeen macallinku bulshada wuxuu uga jiraa door weyn wuxuu ifiyaa ama kobciyaa maskaxda ardayda iyo dhalaanka ama jiilka soo karaya maskaxdooda ayuu kobciyaa macallinku waa maankuriye waxa loo soo doontaana waxay tahay inuu maskaxdaada oo wax ku shubo inuu muxuu ahaa aqoontaada kobciyo oo koriyo inay isla falgalaan da'daada iyo garaadkaaga sidaa darteed wuxuu qaataa ama ciyaaraa door weyn oo ka mid ah nolosha qofka bini'aadanka ah qofkii helaa macallin wanaagsan isla markaana aqoon iyo tacliin ka helaa waxaa hagaagsanaan doona ama hagaagsanaada mustaqbalkiisa iyo future-kiisa ayaa hagaagsanaada insha Allah waxaan rajaynayaa ardadana inay u soo diyaargaroobaan sidii ay macallimiintooda cilmi uga xambaari lahaayeen ama ay wax uga faa'iidaysan lahaayeen qof walba macallin ayaa wax soo baray dhakhtarka isbitaalka jooga ee daawada loo raadsanayo muxuu ahaa bulshada caafimaadkooda kor u soo qaadaya ama fayodhoorka bulshada ka shaqeynaya waxa wax soo bara waxay tahay macallin marka sidaa darteed aad iyo aad ayuu macallinku muhiimad gaar ah bulshadeena ugu leeyahay macallimiin haddaan nahayna waxa weeye waxaan ku faraxsannahay maamuuska nala maamuusayo had iyo jeer oo bulshadu ay maamuusayso ma aha maalin kaliya in macallinka la maamuusayo laxadad kasta iyo saacad kasta iyo time kasta waa lagugu maamuusayaa haddaa macallin tahay bulshadaana ka helaysaa maamuuskaas iyo wanaaggaas iyo qadarintaas markii aad macallin tahay waxaad dareemaysaa in dadka dhan ay ixtiraam kuu hayaan marka laga taga xataa ardayga aad waxbaraysid in bulshada ee ixtiraam ay kuu hayso runtii waa wax weyn oo ummadda Soomaaliyeed ay ku ammaanan yihiin iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed